madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu soo gaaray magaalada Marka ayaa si weyn dadweynaha reer Marka ugu soo dhaweeyay waxaana uu la kulmay bulshada ku nool magaalada iyo guutada 14 Oktoobar ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo horgal ka dhana kooxaha nabadiidka ka wada gobolkan Shabeellada Hoose. shacabka ku nool magaalada Marka ayuu madaxweyne Farmaajo kula hadlay bartamaha magaalada waxaana uu ku amaanay sida ay u garab istaageen ciidanka xoogga oo uu sheegay inay u suura galiyeen in magaaladan ay ka howleelaan kooxihii nabadiidka. magaalada waxa xoreeyay idinka iyo ciidanka qalabka sida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la'aantiin magaalada xor ma ahaateen maxaa yeelay waad la shaqayseen gacan ayaad siiseen waad isgarab istaagteen reer Marka waa dad wanaagsan waa dad wadaniyiin ah waa dad dawlad jecel waa taasoo dawladdiina halkan idinku timid maanta oo ku astaysan 14 Oktoobar oo sanad guuradii koowaad ah maalintii 14 Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay ee qolooyinka argagixisada ahaa oo wuxuushta ahaa ee shacab Soomaaliyeed oo gaaraya 600 ku xasuuqay barqacad oo waqtigan oo kala ah iyagoon waxba galabsan ummad badan oo boqolaalahan ku dhaawacay hanti badan burbur ugu geystay waxa weeye maanta inaan imaado halkan oo ciidamadu halkan yimaadaan oo wuxuushtaas argagixisada halkan uga horeyno waxay ku timid jawaabtii ay ka soo jawaabeen dalabkaygii ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed oo maanta halkan la jooga qaarkood. madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Indha Qarsho ayaa la qadiyay guutada 14 Oktoobar oo uu ku amaanay kaalinta ay ka qaadanayaan la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo habdhaqanka wanaagsan ee ciidamadu u muujiyeen bulshada ku nool gobolka Shabeellada Hoose. waxaad xaqiijiseen in ciidan Soomaaliyeed uu qabsan karo magaalana uu hayn karo waxaad xaqiijiseen ciidanka Soomaaliyeed wixii loo aas-aasay oo ahaa difaaca dadkiisa iyo kaalmeynta dadkiisa inaad ka soo baxdeen oo magaalada dadka jooga kulli ay hadda ay idin ammaanaan ay yiraahdaan waxay ciidan nidaamsan oo discipliin leh oo astaantii qaranka wata oo qofka weynna kaalmeynaya qofka dhibka wada ama magaaladan dhibka u keeni karana ka qabanaya. madaxweynaha ayaa la kulmay waxgaradka gobolka Shabeellada Hoose uu kala hadlay doorkooda nabad ku soo dabaalida gobolka iyo si xoojinta barbaristaaga ciidanka xoogga oo baacsanaya kooxaha nabadiidka. madaxweyne Farmaajo ayaa caawa ku hooyanaya magaalada Marka oo ay toddobaadyo ka hor la wareegeen guutada 14 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka oo u badan dhalinyaro ciidamada ku biiray sanad ka hor markii Muqdisho uu ka dhacay weerarkii 14 Oktoobar oo galaaftay nolosha muwaadiniin fara badan.